maamulka dugsiga dayaxa ee magaalada Burco ayaa xaflad ugu dabaaldegay guushii dugsigoodu ka soo hooyay imtixaankii shahaadiga ee dalka oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka degmada madaxda waxbarashada culimaa u diin waalidiinta ardayda iyo marsharaf badan ku qabta hotel Deero ee magaalada Burco maamulaha dugsiga dayaxa Maxamed Cali Bulaale oo ka warbixinaya guusha dugsigoodu ka soo hooyay imtixaanka shahaadiga ayaa waxa uu yiri waxay tahay xafladu waa sagootin ardaydii san dufcadii saddexaad dugsiga sare ee dayaxa waa sagootin waana hambaliyeyn labadaas ayay markaa isugu jirtaa waxaan ognahay sanadka in ardayda dugsiga sare ee dayaxa ay kaalinta koowaad ay ka galeen imtixaanaadka dugsiyada sare ee Jamhuuriyadda Somaliland tirada guud ardaydu waxay ahayd 128 arday 35 arday waxay ku baxeen darajada halka ay 19 ku baxeen darajada B laba arday baa darajada C ah wax darajada D ah oo haba yaraatee jirina ma ay jirin maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad gudoonka waxbarashada gobolka Togdheer Xasan Jaamac iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Xamuud Maxamed Yuusuf Ubaxle oo xafladaasi ka hadlay ayaa waxa kamid ah hadaladoodii marka la dadaalo macallinku ha dadaalo maamuluhu ha dadaalo ardaygu ha dadaalo waxa soo baxaya qofku markuu dadaalo wax la mid ah waa soo baxaya dadaalkiisa waxaan arkaynaa meel aan laga filin maanta Jamhuuriyadda Somaliland inuu ka soo baxay ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa inuu halka ka sii bato haddaan wasaaradda waxbarashada nahay marka waxaan aad iyo aad sanadka ugu faanaynaa dugsiyada ka galay kaalmaha koowaad ee dalka oo ugu horeeyo dugsigan maanta xafladiisa aynu joogno ee dayaxa secondary school ujeedaduna waxa ay in la dhiirigeliyo la hambaliyeeyo ardayga kaalinta koowaad ka galay qaranka oo runtii ay nasiib u yeeshay gobolka Togdheer iyo waliba dugsiga dayaxa Maxamed Cali Jaamac oo ahaa ardaygii ugu sareeyay imtixaankii shahaadiga ee dugsiga sare ee dalka Somaliland oo isaguna xafladaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay maamulka iyo macallimiinta dugsigiisa xafladan si ballaaran loo soo agaasimay ayaa waxa kale oo ka hadlay culimaa u diin waalidiinta ardayda mas'uuliyiin iyo marsharaf badan kuwaas oo dhamaantood ku bogaadiyay maamulka iyo macallimiinta dugsiga dayaxa guusha weyn ee ay ka soo hooyeen imtixaanka dalka waxaana gabagabadii xafladaasi abaalmarino iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ardayda iyo macallimiinta dugsigaasi Axmed Dagaale Home Cable TV Burco.